السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. faa'iidada ugu wanaagsan ee ay leedahay waxbarashadu waa hubka ugu awooda badan xaalad kasta ee jirta. qofku haddii uu doonayo inuu waxbarashada guul ka gaaro, fadlan wax u baro si xiriira ama joogto ah. faa'iidooyinka ay leedahay waxbarashadu waxaa ka mid ah: number 1, waxaad helaysaa xushmad ama tixgelin kaaga imaanaysa qof kasta iyo meel kasta. haddii aad tahay qof aqoon leh, waxaad heli doontaa tixgelin taasoo kaaga imaanaysa qof kasta iyo meel kasta. number 2, waxbarashadu waxay beddeshaa caadooyinka ama dhaqamada. ma helaysid meel kaaga wanaagsan iskuulka kaasoo aad ku baranayso dhaqamada asaasiga. shay kasta aad ku baranayso iskuulka waxa uu saameyn adag ku yeelanayaa nolosheenna maalinlaha ah. number 3, shaqo ayaad ka helaysaa meel kasta waa haddaad si fiican wax u baratay ama waxbarashada heer sare ka gaartay. number 4, waxbarashadu waxay samaysaa saaxiibo wanaagsan, markasta isjecel, markastana nolosha rafiiq ku ah. number 5, maamulidda waqtiga ama lacagta. waxbarashadu waxay wax ka beddelaysaa nolosheenna oo dhan haddaan ku dadaalno. waxbarashadu waa muhiim. waanigoo ah walaalkii maxamed ibraahim. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.